Bannaanbaxan looga soo horjeeday isla markaana looga tacsiinayay dadkii Soomaaliyeed ee wax ku noqday xasuuqii maalintii shalay ay ugu geysteen magaalada Muqdisho shacabka Soomaaliyeed kooxaha naxariista daran ee Shabaab oo ay soo abaabuleen ururka haweenka degmada Cabudwaaq ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Cabudwaaq waxaana kala qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada oo ay weheliyeen qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah dadkii ka hadlay dibadbaxa maanta ayaa si isku mid ah u sheegay inuu ahaa falkan lagu xasuuqay shacabka Soomaaliyeed mid muujinaya heerka naxariis darrada ay gaarsiisan tahay kooxaha nabad iyo nolol diidka ee Shabaab kuwaas oo ay ku sheegeen in ay hadda u soo jeesteen beegsiga dhiigga shacabka Soomaaliyeed la oran karo waxa loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed in lagu cirib gooyo ay ka muuqato naxariis darro oo ay ka muuqato Soomaali nacayb oo ay ka muuqato diin la'aan oo ay ka muuqato waxa la yiraahdo arxan la'aan waxaan leenahay intii ku dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta hadda ku dhaawacantan Ilaahay ha u booqadhayo waa tilmaan weyn oo muujinaysa inuu falkaas u lahayn target dawlad lagu ugaarsaneen shakhsi aan lagu doonayn la rabay in ummadda Soomaaliyeed lagu gumaado waa arintaas waxaan ka baran doonaa casar weyn ummadda Soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinaynaa inay arintaas u qaataan in dalkooda laga cirib tirahayo istirkooda la baadhinayo maskaxda soo mareegtana aysan muslim ahayn waxaan ka tacsiinaynaa gaaridii naxdinta lahayd ee shalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo qarax ahayd oo dadka islaamka oo muslimiinta ahi ee lagu baabiyay waxay galabsadeen aan la arag waxaan leenahay intii dhimatay Allah u naxariisto inta nool la Ilaahay ha u boogadhayo Ilaahay waxaan ka baryaynaa Ilaahay inuu dhibaatadaas Soomaaliya Ilaahay ka zuuliyo masiibo ku habsatay weeyeen intaasaan ka soo jeedinaynaa waxaan odayaashii deegaanka degmada Cabudwaaq inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun meesha waxaan isku nimid masiibadii qaran ee ka dhacday Muqdisho ee lagu gumaaday shacabka Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun balanahay eeladii iyo dadkaas ka geeriyoodeen Ilaahay samir iyo iimaan Allah ka siiyo Allahna u naxariisto dhammaanteen bay naga geeriyoodeen dadku markay dhamaadaan dalkeena sidii lagu qaadan lahaa baafoonkeeda la hayaa Soomaaliyeey aan isgarabsano aan ka dhidhino wada jeedaan inaysan maraynin maanta madaxweyne iyo xildhibaan iyo ra'iisul wasaare iyo baarlamaan inaysan maraynin shacabka Soomaaliyeed iyo hooyada Soomaaliyeed sidii lagu dhamayn lahaa dalkana markuu dadkii si dhamaado dalka dadkii nool baa qaadanaya ugu dambeyn gudoomiyaha ururka haweenka degmada Cabudwaaq Deeqo Cabdi Cilmi iyo gudoomiyaha maamulka degmada Cabudwaaq mudane Mahad Cumar Cilmi oo gabagabadii ka hadlay dibadbaxan ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed in ay midoobaan si meel looga soo wada jeesto kooxaha argagixisada Muqdisho dhibaatadii ka dhacday runtii waan ka xunnahay wax laga qiiroodo weeye hooyada Soomaaliyeed iyo dhalaanka Soomaaliyeed ee la baduubaha iyo maalin walba oo waxay geysteen aan la arag Soomaaliya ku quustaan dhihi lahaa waxa weeye dhibaatada maanta Soomaaliya haysata ayadaa isu geysatay waxaan leenahay Soomaaliyay mid noqda gamcaha isqabsada dhibaatada idinku soo fool ka tashada waxaanu isku nimid geeridii naxdinta lahaa iyo xasuuqii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaanu leenahay wixii dhintay Allah u ogaanba qulubtooda ha isku dumo khaasatan ummadda Soomaaliyeed Ilaahay midnimada iyo wanaagga iyo sharafka ha waafajiyo Cabdikariin Axmed Bulxan raadiyaha TV-ga qaranka Cabudwaaq